oonu imaado fariimaha aan doonayo labada mas'uul inaan u diro waxay tahay labada mas'uul ee labada deegaan horjoogayaasha ka kala ah sida muuqata waxa muuqata in runtii aad mushkilada hadda wadanka ka jirta inaad qayb ka tihiin kulamadii iyo isu imaadkii iyo wada hadalkiina inaad shuruudo badan aad hor dhigaysaan shuruudahaasi maxaa gar ah maxaa gar ahayn maxaa khaldan maxaa saxsan mas'alo kale waaye laakiin war ha laysu yimaado ha la wada hadlo aan wada hadallo aan heshiina waaye in shuruuda lagu xidho mushkiladii qayb laga noqdo oo ummaddii inay muxuu ahaay wuxuun ay u suuroobaan aad caqabad ku noqotaay waa mushkilo arrintaasina waa arrin iska muuqato arrin maanta dadku nin walba muxuu ahaay intay u joogtaba waxbuu kala socdaa waxa jira iyo say wax u jiraan ma aha adduunkii idaacadda dowladda iyo telefishinka dowladda iyo wixii uun madaxdu tidhaahda inta la dhagaysto dadka qaabkaasi lagu socon jiray ma aha yacni waxa weeye wax walbaa furmay sidaas daraaddeed nin walba intay u joogtaba shaki wuxuusan ku jirin labadiinna mas'uul in waayahan dambe sida aad u dhaqmaysaan aad qayb ka tihiin mushkilada dalka haysata waxaa isweydiin la marka sababta kalifaysa maxay tahay dad badani waxay qabaan allahu aclam laakiin dad badani waxay qabaan in ay ujeeddada kalifaysaay ay tahay in aad dowlado aad xidhiidh la leedihiin tala wadaag la leedihiin oo qaabkan aad u tasarufaysaan iyo ummaddan aad lugaha haysaan ama aad shafka kaga fadhidaan inay muxuu ahay isu timaado heshiis gaadho oo wax laysla meel dhigo oo aad caqabadaha iyo shuruudaha faraha badan ku xidhaysaan arrintaasi inay ajendo shisheeyo tahay tuhmadaa waa la qabaa dad badanna waa rumaysan yihiin haddayse jirto anigu waxaan leeyahay hadday jirto waxaan leeyahay waa khayaano marka koowaadii waxa weeye waa khayaano mas-uuliyadeed waa khayaano ummadeed khayaano qaran baa la yidhaahdaa ka horna waa khayaano ilaahay la khayaamay waaye dalkaagii iyo deegaankaagii iyo ummaddaadii iyo diinteedii iyo inaad dalal kale oo waddanka dana kale oon maslaxadiisa ka shaqaynaynin inaad tala wadaag kala yeelato qaabkaad u tasarufaysana ayaga ku raalligelisaaye hadday arrintaasi jirto xantu waa sidaas laakiin hadday jirtaay arrin idinku habboon maaha arrin saxsanna maaha qodobka labaadii waxa weeye haddii sababta kalifaysa ay tahay in xisaabtan qabiil maadaama aad isku jifo tihiin ay tahay muxuu ahaayey xisaabtan ku dar iyo ka go iyo innaga maxaadan inoogu jirta iyo waxbaa inagaga maqan hadday xisaabtanku nooca yahayna oo jifo xisaabtankeed aad markaasi u samaynaysaan waxyaalaha muuqdana markaasi waxa weeye waxay mudan tahay inaad dib u xusuusataan muxaasasada qabaliga ah iyo annagoo ree hebel waxbaa naga maqan iyo intay wax naga maqan yihiin laysu imaan maayo hadday sidaas tahay sababtuna waa tii lagu halaagsamay waana tii lagu baaba'ay waana waxa heerkaa maanta ina dhigay waa ta noocaasoo kale ah waaye inaan marka waxa weye caqligeedii iyo garaadkeedii waaye aragnimadeedii ka faa'iidaysan weynaaye iyadana waa caqli xumo waa hadday tahay waa haddii sababtu ay tahay cadaawad shakhsi ah oo idinkala dhaxaysa ninka xilka haya mas-uulka xilka ugu sarreeya haya haddii ay tahay cadaawad idinkala dhaxaysa meelaad isku qoonteen fadhiyaad isku qabsateen waa la isu dhaartay car iyo car baa laysyidhi hadday tahay isqoonsi shakhsiya oo adiga idinkii idinkala dhexeeya ninka, oo ay tahay ama isaga waa inuu meesha ka baxo
ama waa inay ummaddu kala maqnaato. hadday sidaas tahay waa waxay Soomaalidu yaqaanaan isxiniya taabadka iyo nin necbaysi hadday tahayna, hadday arrintu sidaa tahayna ma habboona nin baan isnacabnahay iyo hebel baan isdiidannahay inaad ummadda u kala haysaan oo aad muxuu ahay lugaha u haysaan oo muxuu ahay nin necbaysi iyo nin hebel baanu isdiidannahay in masaalixdii waddanka halis loo geliyay ayaduna caqlina ma aha, sharcina ma aha, damiirna ma aha, dadnimona ma aha. hadday taa tahay sababta kalifaysa waxaan leeyahay marka caqliga u soo laabta oo xikmadda u soo laabta oo mas-uuliyadda aad haysaan waxa ka dhalanaya iyo muxuu ahay culayska ay leedahay dareema. gobollada aad gacanta ku haysaan eed mas-uuliinta ka tihiin horjoogayaasha ka tihiin ayaa mashaakiil fara badani ka jiraan. Soomaalida kalena waa la qabtaaye nabadgelyo la'aan, khilaaf siyaasi ah, marna deegaan iyo qabyaalad noqonaya, sheegasho fara badan oo dadkii sheeganayaan oo dad fara badan ay dulmi tirsanayaan, noloshii oo cidhiidhi gashay, siyaasaddii oo laysku haysto meel walba muxuu ahay qoorta layskula jiro. dadkii deegaamada aad horjoogayaasha ka tihiin ku noolaa ayaa dhibaato fara badan haysataa oo tan aad ka sheeganaysaan qoladanka aad ishaysaan aad ka sheeganaysaan intaa ka badan baa laga yaabaa deegaamadaad ka soo jeedaan in laydinka sheeganayo. soo ma fiicna marka in aad dareentaan war kuwii inuu hoos joogay baaban mashaakishoodii xallin la'nahaye dalka oo dhan iyo horsocodkiisii iyo dowladnimadiisii iyo nidaamkiisii yaynaan caqabad ku noqonin. soo ma ahayn. soo in mas-uuliyadda la dareemo ma aha, soo in ilaahay looga cabsado ma aha. cumar radiallahu tacaala canhu wa ardaa xilkasnimadu sidan waaye ayaa waxaa kutubta taariikhdu wariyaan inuu dhihi jiray haddii waddanka ciraaq isagu markaa madiinuu joogaa, ciraaq haddii ay baqal ay ku simbirraxato, baqal hadday ku kufto ciraaq, waxaan ka yaabayaa ilaahay hortiisa in lay weydiiyo la yidhaahdo maxaad jidka ugu hagaajin weyday, maxay u kuftay. cidda mas-uuliyad iyo xil dareemaysa taasuu ahay. ummadihii idin hoos joogay gaajo, nabadgelyo darro, abaaro, rafaad, muxuu ahay dhib oo dhan baa haysta. meeshii marka laga fikiri laha war horay aan u soconno oo tan aan joognana inu muxuu isku mashquulinno ina mashaakishooda hoose wax ka qabanno, taa guudna aynu horay u riixno oon tanaasulno aan ka fikiri lahayn inaynu maanta muxuu ahay mindi ku taag iyo hebel ma arki kariyo hebel baan isnacabnahay iyo waxoogaa yar baa meesha iiga muuqda waxbaa igaga maqan iyo warnimayaho waxa weeye arrintu halkaa ma taallo. soomaalida waxay yidhaahdaan muxuu ahay bisadna waa ka ciyaar, jiirna waa ka naf. bisaddu jiirkii oo nafyahaysay iyadii ku ciyaaraysaa. in ummadda aad masaalixdeedii iyo danteedii ayada oo maanta dhib dhammaysatay oo dhibka maanta haystaayey wax ka badan ba aan xamili karaynin inaad haddana waxyaala yaryar muxuu ahay sagaaro maxay dhihi jireen biyo macabtaa iyo biyo macabta iyo waxaan macno lahay inaad isku haysaan runtii waxa weye waa nasiib xumo weye. waxaan dhihi lahaa marka oon idin dhihi lahaa tanaasula oo maslaxada ummadda ilaaliya oo shuruudahan faraha badani waa wax laga gudbi kara iyo wax la isla meel dhigi karee shuruudahan caqabadaha ka gudba oo mindi ku taag. dalna ma koriso, dadna ma koriso, ummadna wax ma tarto, horumarna ma keento, nin baan is aragsannahayna haba yaraatee wax ma soo kordhiso. tanaasula oo ummaddu inay is aragto kulanto oo wada tashato oo natiijo gaadho oo nidaam wada dhisatoy horay u socoto qayb ka noqda. u tasarufa si mas-uuliyadii ku jirto. dareema mas-uuliyadda idin saaran ee ilaahay agtiisana idinka saaran, bulshaduna ay idinku aaminto idiin dhiibtay, haddiiba laydiin dhiibayba. ijiid aan ku jiidee macno ma keenayso. ahmiyadda ammaanada dareema. waxa aad haysaan ama si khalada ku haya ama si saxa ku hayee waa mas-uuliyaddii dhulka iyo samaawaadka iyo cid walba ay ka cudur daarato qaadi kari weyday oo ay ka cudur daarteen baad qoorta u ridateen, markaasaad haddana qaabkan u tasarufaysaan. waa wax la yaab la waay.
waxaan idin leeyahay cuquubada imaan karta qiyaasa ilaahayna ka baqa cuquubada iyo nafsiga soo degdegi kara iyo ka daahi kare aakhare jiri kara labadaba xisaabtiina ku darsada ummaddan masaakiinta eed korkeeda ku ciyaaraysaan ee dulman habaarkeeda iyo isheeda iska ilaaliya iska jira caafimaadkiinna uga tura qoysaskiinna iyo ilmihiinna uga tura aakhiradiinna uga tura naftiinna uga tura dadkan aad korkooda ku ciyaaraysaan ma idinka sheekaynaya idinkaa horjoogayaal u ah laakiin runtii waxa weeye ma aha dadkii maanta tasarufaadka idinka muuqdaayay korkooda lagu tasarufi lahaa ma aha dalkuna ma xamili karo dadkuna ma xamili karaan ilaahay ka baqa taariikh xun ha ka tegina magac xun ha ka tegina ilaahay agtiisana xumaan iyo cuquubo soo degdegtiya mid dambe ha kasbanina u soo noqda ummadda iyo maslaxadeeda u soo laabta waxaan idin xusuusinayaa oo mudan runtii in laydin xusuusiyo in badan oo ragga xilalka haya ka mid ah ama dowlad goboleedyada xil ha ka hayeen ama dowladda dhexe xil ha ka hayeen in badanoo ka mid ah diinta aqoonteeda waad ku dhantaan maxaa yeelay labadiinna mid walba waxaan ka warhayaa inuu wixii la dhihi jiray saxwadii islaamiga ahaa uu qayb ka ahaa oo wadaadnimo laydinku tuhmo ama laydinku sheego oo aad diinta wuxuun ka taqaanaan marka in dadkii aad aqoon dhaanteen maanta ay idinku yeedhaan warkaalaya maslaxada imaadda warkaalaya fadhiga imaadda wartalada imaadda idinkuna aad muxuu ahaaye aad diidaan ama shuruudo iyo caqabado hor dhigtaan sooma kitaab xoornimo ma aha soo waxay soomaalidu dhihi jirta janno kaboodnimo ma aha sooma noqon karayso tii ilaahay qur-aanka kariimkaa ku sheegay tabaaraka wa tacaala ruux aqoon leh oo haddana aqoontiisii aan ku dhaqmaynin tusaalaha xun ee qur-aanka kariimkii ka bixiyey marka nimayahu ilaahay ka baqa iska daaya idinkii qayrkiinba wax la yidhaahdo beesha caalamka iyo muraahanada aad muraahanaynaysaan beesha caalamka ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadda dalkan burburay maalin buu ka soo bixiyey gacanta wax la yidhahdo beesha caalamka beesha caalamku wax ma dhisto waxbayse burburiyaan waa intaasoo dowladoodoo dana kale leh maanta haddii la yidhaahdo muxuu ahay taladii halkaasay taallaaye ha loo celiyana runtii waxa weeye waa ungod kale ku sii dhaca waxaad samaysaan dalku haddaad idinka isfahmi weydeen wuxuu leeyahay culimuu leeyahay aqoon-yahan buu leeyahay dad cuqalaa buu leeyahay khubaruu leeyahay waayo arag buu leeyahay talo ummadda bannaankeeda ah ha aadina hana ku talinina tanaasula masaalixda dalka u tanaasula masaalixda ummadda u tanaasula shuruudan meel iska dhiga nin nacayb meel iska dhiga nin necbaysi meel iska dhiga hebel baan ishaynaa meel iska dhiga hebel baannu masaalix iyo waxoogaa isku qabnaayoo dana aanu isla heshiisnahay iska daaya waxaad miiska imaadda oo ha la wada tashado in la wada tashadana oggolaada una soo tanaasula caqabaadkan faraha badaneed hor dhigaysaan in ummaddu isu timaadana wax laga garaabi kara ma aha wax la fahmi karana ma aha tafaasiir fara badan oo runtii waxa weeye ummaddu inay ka bixiso oo ay ka timaaddo wixii la dhihi jiray muxuu ahay tuhmooyin fara badan ka yimaadaanna way imaanaysaa ama tuhmadaasi gar ha ahaato ama yaysan ahaanin leanna ruuxu meeshuu isdhigo shilalkuu isdhigaa lagu qalaa nebigana sal alla alay wasalam mawaadinu tuhamka in laga fogaadayo nebigu waa ku teliyey sal alla alay wasalam maslaxada caamka walaalayaal hormariya ummadda danteeda guudna hormariya waxyaalahan hoos-hoose yaryarkeed idinku isku aragtaaneed biyaha hoosteeda iska taabateenna waxyaalahaasi ka gudba oo si mas-uuliyad iyo odaynimo iyo akhyaarnimo ku jirto oo aad ummadda mas-uuliyaddeeda ka danqanaysaan iyo maslaxadeeda guud u tasarufa tawfiiqdana allah idin wada waafajiyo allahna ina wada waafajiyo